wiil oo ma aragta cabsi fara badan ku jiro waaye taleefon Sweden hadii la iga soo waco uu naxay taleefon Sweden markuu arko uu qalqalay shalay anagoo meel u socono asaa igu wada Maxamed Baawur buu wataa wallaahi Sweden gabar iga soo wacday markaas uu Maxamed ii soo diray oo eedadiis miyaamasa in adeertiis markuu arkay inay magac iima qorneen wiilkii wuu argagaxay eriyalkii dhan waa ka dhulnay marka Maxamed taleefon Sweden haduu arko wuu ka naxayaa sababtaas in la raadiyo sababtu lambarka Sweden oo wiilka oga naxaayo in la ogaado warkaas war culus waay aan dhoobi wajigiisu wuu isbedelayaa dareenkiisuna wuu isbedelayaa wiil aad boqor u waaye aadna u maskiinsan wallaahi bilaahi taala wax balwada uu leeyahay ma jirto Maxamed anaga gacanta ku hayno wax uu balwad uu cunooyo haba yaraatay ma jirto marka Soomaaliya qofka haduu soo hurdin waalidkiisna xaaladda aragteen ku sugan yahay walaashiisna dhibaatadaas ay ku dhacday idinka nafsadiina ka soo qaaday adeer saada soo qaba xanfresh marka cunuga xuleesidaas faraha badan leh ayaa saaran marka Soomaaliyay xataa qolal badan oo la dhahayo caasi waaye balwadu isticmaala asaa i tusaaye dad badan oo waxa jirta aniga isku fiicannahay waa u soo koray waxaan dhahay joojiyo waxaas walaalayaalow ilmo yar yaraan dhalnay please wiilka waxa ka faafinaysiin iska daayo qof kasta uu daawanaya cunuga hadda afarta qofood aan dhahay joojiyo asaa i tusay marka isla soconay habar yar maxay taa sharciga been ka sheegayeen noloshiisa been ka sheegay wallahi uu dhageysanay waan ooy fahmaysa walaalayaalo wiilka hadheemis gareen asaa u baahan kaalmo ehelnimo u baahan yahay Soomaalnimo u baahan yahay lacag la siiyo u baahan laga dhibaatada laga bixiyo lala sheekaysto la soo dhaweeyo wallahi boqor waa salaadu tukada ilaa imaanka qaaf inta mar uu salaad tukanay cunugaas ana aakhir la isoo istaagay quraanka soo u yaqaan waayabe luqada Maxamed Daawulo Dave one minute about Maxamed Daawulo gabdhaha saaxiibada ah adigana aad ku taqaano cashuur la dhaha $100 aniga seel igu soo diraysa anigana donation-ka hadda ku tuuraa mise adaa seel kugu soo diraa seel fudud seel kuma kugu soo diraa donation-ka lacag ka goosanaa seel diyaar waa seelahada hadda ku soo tuuraa lambarkaaga waa hayaan marka bas cashuur la dhaha qayr Allah si walaalayaal intay Dave hadlaysa information-ka idin siinayso donation-ka wada cidii aniga taqaano reer banaada ama ay garanaysana seelaha Maxamed waa ugu tuuri kartiin goofanka ugu tuura Maxamed aan ka farxino Allah ka farxiyo asagii wiilkiisa bay Allah ka farxiyo aniga jaar ma haysto ya kale wallahi waxba laakiin murug kalaaba iga soo siyaadaba aanan awoodinba Maxamed wax badan ka dhax guuxaayo inkastoo aniga naga xishoonay qalbigiisa wax badan uu rabaa inuu ka hadlo ka dhax guuxaayo muudgal marka Maxamed wax badan uu rabaa inuu ka hadlo oo maaragtay uu sheego ka dhax guuxaayo cunuga marka dadku waxaan leeyahay walaalaha qaaliga ah ubad waan dhalnay dib la'aan aan dhalnay Maxamed maskixiina oo la dagaalaysiin waxa aad ka qoraysiin waxa aad sameynaysiin walaalayaalow iska dhaafa familian problem Dave dadka hoos waxay soo qorayaan seelaha adeer maleeya marka adeer seelo uu leeyahay lambarkiisa caadiga ah seelo ugu furayaan saas la socda lambarkaada caadiga adeer soo qor waa leeyahay laakiin aniga ma jecli inaan dad dhibo wallaahi la ilaaha illa allah lambarkayga waa kaas toosi abdi salaamu calaykum fiican tahay wa calaykum salaam waa kaas seelo leeyahay lambarkaas waa ku soo waa qaban weysay ku soo abti ani cirkaan ba ku jira adduunka ma warqan wallaahi wiilka inta bala keeni karaa abti wiilku sharci u baahan yahay sharcina ma haysto sharci ma qaano yurubta lacaga lagu qaataa maya ka sharcigiisa inta ma raadisad abti maxaan ku raadiyaa sharciga inta asaaba galaaftee hadda da wadni soo noqonaya abti wixii jiro dhan uu sheegaya sharcigiisa la raadiyo wiilka ma yani sharci waxaan ka rabaa sharciga hooyadii dhashay laga rabaa iyo ahalkeeda hooyadii dhashay iyo ahalkeeda laga rabaa greenka inta magaalada keentay inta waayay marka koow aniga danfar qaraadan keena markii la qaadaya la yiri sharcigan ma rabtiin oo haysanaysiin oo waa joogaysiin oo baasaboorka la ana keenay
مساج ولا كسلا ويك صحيحدي inaysan soo noqon karin miya ma og wax baa la sheegay laakiin kii xaggan muu qaadin miya iyada kii xaggan muu qaadin 8 sano inuu sugay noqotay waa beediye boodka ii wada ka 8 sano maxaa lagu leeyahay lacag ka dowladda election agency oo kala lagu diraa baasaboorka laakiin Yurubta kale iska dhiibi karaa abte waa sheeko ana ku soo wacay marka dhameysay iga qaba telefoonka ka cusub iyo hadda iyo koowaye laakiin hooyada dhashay qofka goofan beedkaas ugu kara waa baahan yahay waa in lagu shaqeeyo ma diyaar waa loo tuuray saado dhageysa abay macanto wiilkan deemaha lagu leeyahay haddii laga bixiyo sharcigiisa gelaya haddaan laga bixin lacagtana way badanee kan kale yaniiska uu ku joogaa laga qaadanaa ma garatay systemkii nidaamkaasaas ah siir aniga dad waxaan arkay abti intii la keenay oo Yurub la keenay qofka 500 soo dhiibay oo jazaaka Allah thank you abti dad waxaan arkay oo Yurub la keenay oo Yurubta geeska kale iska dhiibay arka aniga dadaan fara lahayn waa wiilka duufra asan uba yaraa markii la geenay faraso ku leeyahay sharciyada markii abaa qaadis waa laga qaadaa waa yiri abaa fara adika hadda waxaan inta ma looga hadlay laakiin waa la fiirinayaa saada waa laga qaada faro waa way saada wadanka sidii hore ma qurxay anaga ku taga meesha hadda 15 jir tahay oo waaridka ku qaadanay sharciga soo aqrinay hadii akeerta 15 waaridka ku qaadanay 15 jir waa maasinta qofka lacagta selka lacag lagu leeyahay meeqa saacad insha Allah adii luqada soo wacayay waxay dhooyaan maxamed daawud lacag lagu leeyahay meeqa waa dhooyaan lacag badan waayo lacag aad u badan waayo wiilka waxa lagu leeyahay waa in la baaro nin oo community haysta raadi doonata lacag badan oo meelo kala nooc ah waay ma garan Sweden waxay ku xun tahay baa la yiri hadii lacag lagu leeyahay sida collection agency annaga halkan shaqo sharciga kuma lahan laakiin hadii lacag lagu leeyahay sharci ma qaada kartid oo red bad kaldida laga dhigaa marka sharciga lagu ma siinaayo ma aqaano waa system qaldan oo waalan coronavirus wax la yiraahdo corona waa abtisaas waaye adii ilaa iraad adii anaa ku soo wacay Sweden ani walaashay iyo ciyaalkeeda degan oo waaweyn ma fahanti maxamed daawud oo meel gabadhii aan kuu sheegayay caasho cuud oo maasha Allah gabaraan saaxiibana nahay waaye adna aad ku taqaano 150 kaas soo dirtay seela waan ku soo gudbiyay walaalka ha iloobina inaa caawisaan maxamed daawud hadduu sharci haysan hadduusan dhinaca kale ka ciilan yahay dhinaca budgetka inaan ka helbi garayno muhiim waaye wixii aan u qaban karna aan u qabanno wiilkiisa sharci uu helo maxamed wiilka lawyer u qabo Mareykan lawyer oo qabo u sheeg wiilkaan inuu American markii hore ahaa la qatalay la wareeriyay la jaha wareeriyay dhibaato badan ku dhacday sharcigiisa in dib loogu soo celiyo lawyer u qabo asaga maadaama maanta adult yahay wuu heli doonaa insha Allah ilaahay waxaan ka baryayaa wiilkaaga arooskiisa iyo nolol qurux badan inuu ilaahay gadaal samihii nabiyilaahi waa soo dirayaa walaalaha soo celcelinaya nambaradana aad u mahadsantiin goob waa soo dirayaa jazaaka Allah khayr waa arkoyaa ay waxa soo dirtay laakiin waa ku arkaa duraan ay macaan soo dhawaa maxaa ka codsanayna culummo iyo caamo qabiilka aan ka dhalan waa nasaar waa idin barya qabiilka aan ka dhalanay waxa aragteen igu sameeyeen qabiilka aan ka dhashayow inta wanaagsan waa idin baahana qof kasto Soomaaliya u baahana inta shalana xumaysana laftooda u baahana waa idin baryaynaa shalaan ugu tacadideen maantana ha ku sii daranina victimka do not victimize again markale qof dad curiyaan mucsar ka dhigteen ee sadaqadu ku waajibto ayaa noqonay waa arkaa qofka $10 ku soo dira ilaahay waxaan ka barinaarahay inuu kaaga xoreeyo waa dhibaya wiilku waxba ma haysto anigana waxba uma awoodo taahaadu way dhibahayaa tabarna ku waayay ayay taagan tahay haddaan maanta aniga oo shishale asaga laygu sallidi lahayn maanta idinma baahnaan lahayn laakiin maanta waa mucsar anigana waa mucsar sadaqada iska daay zakada 8 qofood zakada ku baxdaan ku jira ila madaxayga ku caawiya murugtaas xataa adoo isagu dheer ku seexdo kama warwaraayo aniga xataa waaridkaada adoo asoo baahan anoo baahanan shilin aan ka baahdo ilaahay marqaati iga yahan